السلام الله عليكم halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxa qayb ka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka shaqaysan xubno ka tirsan saraakiisha ciidamada dawladda inay gacan saar la leeyihiin kooxda al-shabaab oo dalbaday in la bedelo saraakiisha ku sugan furmaha horeete qaarkood beesha mursade oo lagu eedeeyay in sandaacad ka ahayn dagaalka ka dhanka al-shabaab si looga xoreeyo deegaanadooda oo ay muddo badan al-shabaab haysteen dawladda Soomaaliya oo Kenya ka dalbatay inay joojiso wada shaqeynta ay la leedahay Axmed Madoobe maadaama uu ku xadgudbay madaxbannaanida Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya oo sheegtay in ku dhawaad 100 xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay qudha ka jirtay kadib markii weerar gaal celis ay uga aarsatay kooxda al-shabaab oo dagaal kula gashay deegaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed qodobadaas iyo qodobo kale oo daahson ayaad ku daawan doontaan warka dunida TV oo diyaar garooba aynu ku horeyna madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa amray in dib loo celiyo saraakiil iyo xubno sarsare oo ka tirsan ciidamada dawladda kuwaas oo ka shakisan yahay inay cilaaqaad la leeyihiin kooxda dawladdu ay dagaalka kula jirto ee al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa dib u qaabayn ku sameeyay hanaanka loo galayo dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee ka socda qayb badan oo kamid ah gudaha dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo daraasiin ku sameeyay weerarada soo laabta kooxda al-shabaab iyo sida ciidamada dawladda qaarkood ay ku fashilmeen inay ka hortagaan weeraradaas ayaa amray in saraakiisha wax ka bedel lagu sameeyo isla markaasna la keeno saraakiil iyo ciidamo cusub oo hor leh kuwaas oo qayb ka noqonaya hogaaminta dagaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa aaminsan in saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaarkood ay yihiin dad doonaya in dagaalku uusan dhamaan iyo xubno kale oo laga shaki qabo inay wada shaqeyn hoose la leeyihiin saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay muhiim tahay in dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dhexdooda iyo sidoo kale kuwa kale ee qaybahooda ciidamada qaranka waxa uu sheegay in dalkan muddo badan ay ka jireen xaalado dhinaca ammaanka gaar ahaan dagaalada ka dhanka kooxaha argagixisada oo ay suurtagal tahay inay ku dhaxmilan yihiin hay'adaha dawladda sababtaasna ay soo dedejiso inay ku fashilmaan laamaha amniga dawladdu inay ka hortagi waayaan weerarada uga yimaada dhinaca al-shabaab marka loo eego furimaha dagaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo kulan degdeg la qaatay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ayaa laga soo xigtay inay muhiim tahay xilligan in dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada ku sugan furmaha dagaalka si ay dib ugu noqdaan kuwa qaabaysan oo qaadi kara weerar lagu qabsanayo deegaanadii dhawaan ciidamadu ay ka soo baxeen saraakiisha iyo askarta la amray in la bedelo waxa ku jira kuwii dhawaan lagu soo jabiyay qayb ka mid ah gobolka Galgaduud dibna ugu soo laabtay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe waxaana madaxweynuhu sheegay in muhiim ay tahay in hogaamo cusub ay hogaamiyaan ciidamadaasi iyadoo la bedelayo xeeladii horeete ee dagaalka lagu galay dhanka kale tan xubno ka tirsan beelaha gobolka Galgaduud ayaa lagu eedeeyay inaysan ilaa iyo haatan u muuqan inay diyaar u yihiin in ay deegaanadooda wax ka xoreystaan beesha mursade ayaa ka mid ah beelaha lagu eedeeyay inaysan ilaa iyo haatan muujin diyaar garow iyo sidoo kale sida ay kaga go'an tahay in deegaanadooda markii ciidamada dawladda ay qabtaan ay ku sii nagaadaan beelaha kale waxa ay leeyihiin macawisley u gaar ah kuwaas oo inta badan markii deegaanadooda la xoreeyo la wareega ammaanka balse beelaha dega gobolka Galgaduud gaar ahaan degmooyinka Ceelbuur iyo sidoo kale Ceeldheer ayaa la sheegay in gabi ahaanba laga waayay ciidamo badan oo macawisley deegaanka beesha mursade ayaa la sheegay in xildhibaanadooda ay ku kala qaybsan yihiin sida dagaalka loo qaadayo iyadoo qaar ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku mucaarsan yihiin in uu doonayo in deegaanadaasi si degdeg ah loo xoreeyo iyagoo u arka arrintaasi inay tahay mid dad kale lagu naasnuujinayo xubno ka tirsan xildhibaanada beesha mursade ayaa ka gaday qayb ka mid ah dadka taageersan in xasan sheekh maxamuud iyo qayb ka mid ah beelihiisu ay doonayaan in deegaanada beesha mursade ay geeyaan ciidamo aan u dhalan halkaasi taasi waxa ay dhalisay dadka qaarkood ay shaki ka muujiyaan howlgalka dawladda ee gobolkaas waxaana la sheegay in dhawaan loogu baaqay beesha mursade oo hormood ka yahay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dawladda Soomaaliya inay u diyaar garoobaan sidii deegaanadooda ay gacanta ugu dhigi lahaayeen dawladuna ay u caawin lahayd
askar laga aruuriyay Muqdisho iyo kuwo kaleete oo horey ugu sugnaa Maxaas ayaa la sheegay in la diyaariyay kadibna xubno ka tirsan xildhibaanada beesha ayaa isku mucaaraday qaarkoodna isku qabsaday sida dagaalkaasi loo wajahayo. beesha Mursade oo muddo ka badan 10 sano deegaanadooda la haystay ayaa iminkana u muuqan in ay xoog badan gelinayso xoreynta deegaankaasi. waxaa sidoo kale dhibaatada xooggan ay dadka ku tilmaameen laamaha amniga la shaqeeya in ganacsatada beeshaasi ay diiday inay dhaqaale ku taageerto ciidamada deegaanka. marka la qaadayo howlgal dowladda federaalka iyo dadka deegaanku ay iska kaashanayaan waa in ciidamada deegaanku ay helaan taageero dhaqaale oo ay ka helaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale beesha ay ka dhasheen gaar ahaan ganacsatada. taasna waxay sheegeen in dhinaca ganacsatada laga waayay beeshaas kuwaas oo ay sheegeen inay maareysanayaan in hantidooda la dhibaateeyo hadhow. beelaha dega qaybo kamid ah gobolka Galgaduud gaar ahaan beesha Wacisle iyo beesha Mursade ayaa ilaa iyo haatan sameyn qorshayaal dhaxalgal ah oo deegaanadooda ay dhidibada ugu aasayaan inay gacanta ku sii haystaan. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaas hore u qabtay ayaa dib uga soo baxay magaalooyinka Wabxo, Ceelbuur, Ceeldheer iyo Galhareere kadib markii ay sheegeen in ay waayeen dad kala wareega ammaanka iyo sidoo kale dad u diyaarsan inay deegaanadaasi gacanta ku sii hayaan. si kastaba ha ahaatee beelaha gobolka Galgaduud ayaa iminka wada dadaaladii ugu dambeeyay ee lagu xoreynayo gobolkaasi. dowladda federaalka Soomaaliya waxay uga digtay Kenya inay si wada shaqeynta ay la leedahay maamulka Jubbaland. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in Axmed Madoobe uu doonayo inuu xukunka ka sii haysto diyaarna uusan u ahayn in dalka wax ka xoreeyo oo deegaanada Jubbaland uu ka kiciyo kooxaha ku sugan. waxa ay sheegeen in xilligan la joogo waqtigii dowladda federaalku ay la xisaabtami lahayd Axmed Madoobe oo muddo 15 sano dhaafila wax ka yar 30 kiiloomitir oo uu ka xukumo deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda. xildhibaano ka soo jeeda gobolka Gedo, mas-uuliyiin wasiiraha iyo sidoo kale siyaasiyiin ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay tallaabo degdeg ah ka qaado Axmed Madoobe oo ay sheegeen inuu dhibaato ku yahay dadka deegaanka. waxaa la xaqiijiyay in dowladda federaalku ay uga digtay dhankeeda Kenya inay sii wado cilaaqaadka culus ee la leedahay Axmed Madoobe oo la aaminsan yahay in iyadu ku hayso magaalada Kismaayo. fila Soomaaliya waxay sheegtay in wixii gudaha Soomaaliya looga dambeeyo dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha lana xalinayo balse aysan suurtagal ahayn in ergey gaar ah dowladda Kenya ay u magacaawato maamulka Jubbaland isla markaasna Jubbaland ay ka shaqeyso sidii dowlad madax bannaan inay ula tacaamusho dhinaca Kenya. waxaa ciidamo ka joogaan magaalada Kismaayo waxaana inta badan lagu eedeeyaa inay dhaqaale halkaasi ka sameeyaan gaar ahaan dekedda magaaladaas oo ay ka dhoofiyaan dhuxul fara badan oo dhaqaale ay ka soo galaan ciidamada dalka Kenya iyo saraakiishooda. si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay iminka in ay wado qorshayaashii ugu dambeeyay ee Axmed Madoobe ku cadaadinayso in doorasho uu qabto inkastoo la sheegay Axmed Madoobe inuusan diyaar u ahayn qorshahaasi. warka ka daawanaysa Dunida TV sidaas